Bashiir Goobe oo ah ninka isagu ugu darajada sare ee ciidamada qalabka sida isagoona matalaya wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka ee Soomaaliya si weyn ayaa sawirkan looga maadeystay baraha bulshada 24kii saac ee la soo dhaafay dadku waxay leeyihiin wiilkan wariyaha ah lama yaabaya horta maadaama aan arkaya maanta xataa facebooka dad ku soo qoraayo wasiiradan xilka ay haayaan horta waa qalaad oo bini'aadanimada xaquuqda iyo sidoo kale haweenka inay ka shaqeeyaanba waaba qaladba oo xilkan xataa qofka loo magacaabo waa generaalka Soomaaliya u sareeyo kaasoo hadda waxa laga yaabaa inuu howlgababa xilkan marka wuxuu u qabtay inuu meeshan wax ka bedelo laga yaabo sidoo kalena haweenka xilal kale ayaa loo bedelaa laga yaabaa marka waa la suurad xumeynaya sawirkan ayaa waxaa la dhahaba oo shir weyn ah oo Mareykanka inuu ka dhacayo maleyna la soo qaatay waxaa la yiri wasiiradii Soomaaliya ayaa rag ka ahay kaligood inta kale wada dumar ay ahaayeen taasoo ah been cad haddaa fiirisiin sawirkan si fiican waxaa ka buuxo rag badan ee ka buuxo su-aasha marka meesha taagana waxay tahay raggu kama shaqey karaa miya haweenka bini'aadanimada iyo qoyska waa ka shaqey karaan dumarkuna waxyaaba badan ay ka shaqey karaan ayaa jiro oo raggu ay ka shaqeeyaan marka in la suurad xumeeyo la aflagaadeeyo waxaas caado ayay noqotay